waxyar ayaa cunaya hadda dumarkii waa soo bateen jaadkiisa loo soo kordhiyay saqiir iyo kabiir ayaa cuno isla bilaabay Soomaali cunista iyo ka ganacsiga qaadka dalka Soomaaliya oo si weyn u kordhay kadib markii Soomaaliya loo wareejiyay qaadkii laga mamnuucay dalka UK cunista iyo ka ganacsiga qaadka Soomaaliya ayaa kordhay kadib markii Soomaaliya loo wareejiyay qaadkii laga mamnuucay dalka UK qiimaha qaadka ayaa hoos u dhacay waxayna taasi sababtay in dad badan oo isugu jira haween iyo ragba ay wadu helaan inay iibsan karaan qaadka si ay u cunaan warbixintan waxay noo hayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan iyagoo hoonka yeerinaya ayaa kolonyo gawaarida xamuulka qaada ah oo xawli ku socda ay soo gaaraan suuq ku yaala magaalada Muqdisho dalka Britain oo ay ku nool yihiin Soomaali aad u badan ayaa laga mamnuucay qaadka bishii July ee aan ka soo gudubnay waxa mamnuucistaasi ay sababtay in qaadku uu buux dhaafiyo suuqyada Soomaaliya qiimihiisuna uu si weyn hoos ugu dhaco qiimaha la siisto nooca ugu raqiisan qaadka ee loo yaqaan laariga ayaa halkii kiilo ay hoos ugu dhacday suuqyada ilaa iyo $10 tan iyo markii ay Britain mamnuucday halkii kiilo ee qaadkii London laga soo weeciyay ee qaaska ahaa ayaa maraya $18 halka markii hore uu ka ahaa $30 Cabdiraxmaan Yuusuf waxa uu ka mid yahay dadka qaadka ka ganacsada waxa uu sheegayaa in ganacsigiisu uu bulaalay tan iyo markii qaadka laga mamnuucay Britain qaadka awal waxa ku qaadan jirnay beeciisa milyan 500 qubuljaad haddana waxaan ku qaadanaa 700 600 maanta xoogaa kor u sarakaca qaadkii 900 ana laga diiday qubuljaada qaadka ayaa astaan u ahaa dhalinyaro deegta uu suran yahay qori dhowr iyo 20 sanadood ee la soo dhaafay ee qabqabalayaal dagaal iyo kooxo islaamiyiin ay caadaysteen dhaqanka qori iyo xoog wax lagu xukumo Soomaaliya hadda waxay ka soo kabanaysaa colaadii iyo jahwareerkii daashaday kadib markii ciidamada Midowga Afrika iyo kuwa dawladda Soomaaliya ay ka saareen al-shabaab magaalada Muqdisho iyo meelo kaleba كورينتا aysan Britain mamnuucin qaadka Maxamed Khaliif oo 27 sano jira shaqadiisuna ahayd shaqaale dhismo ayaa awoodi karay inuu qaadka cuno toddobaadkiiba hal jeer marka subaxii shaqa loo kala hayaa shaqadii 200 hadii aad soo heysid macni kartid wiigina cunti jimciyo kale ruuc iyo dhud oo kale 160 asiisanayna dadka u ololeeya mamnuucista qaadka ayaa ku doodayay inuu halis ku yahay qoyska iyo horumarka shakhsiyaadka qabatima halka kuwa doonaya inaan la mamnuucin ay ku doodayaan in mamnuucista qaadka ee Britain iyo dalal kale oo Yurub ku yaala ay dhalinyaro badan u horseedi karto inay ku kacaan fal dambiyeedyo ama ay ku biiraan xagjirka sanadkii 2006 ayaa warbixin ay soo saartay hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO waxa lagu sheegay in qaadku uu sare u qaadi karo dhiig karka hurdo la'aanta iyo xanuuno kale oo dhowra isla markaana uu daciifiyo awoodda galmada ee ragga dumarka Soomaaliyeed ayaa burbur ku dhaca qoysaska iyo caruur la dayacay daliil uga dhigaya waxyeelada qaadka Khadiija Cali ayaa qaadka muddo dheer isticmaalaysay waxay sheegtay in qiimaha qaadka oo hoos u dhaca ay ka dhigan tahay in dumar badan ay ku soo beerayaan cunistiisa waxyar ayaa cunaya hadda dumarkii waa soo bateen jaadkiisa loo soo kordhiyay saqiir iyo kabiir ayaa cuno isla bilaabay Soomaali dawladda Soomaaliya oo awoodeeda dhaqaale iska liidato ayaan isku howlin la socoshada xaaladaha caafimaad ee dalka Soomaaliya waxay xoogga saartaa la dagaalanka al-shabaab iyo dhismaha hay'adaha qaran ee dawladda